كتابا أقول أودين النبي محمد صلوات الله وسلام عليه ورسولك صلوات الله سندي سان هيسن وردتك أول رسولك أول شيء أودي ده علي وحي ما دون حليق قلاف وحلا دمنا هويد السيد قادس وهوية ما أنت دولك هكذا بود لا جب لا واسرع عين أبعد ما وحلا دمنا وهوية نادر معنا أما عنق أنا قد ما طي على شباب كادي لا مشان عنق على شباب نقدر قول والله حمر كيان باي سعدي تاس موغانا باي مالول بوساسو waa lagu dilaa dad baa lagu dilaa war maanta daarood iyo habiye ma kala maaragtay sheega xabado waa u kala wataa nimanka waxay dhaafayaan mala fiiri nimankii ogaadeen abay dhigayso ma diidin dhigayso sacdiyo nimankii ogaadeen ay ku laayeen shilaabo iyo inta ka dhaxlay afkaana hore khibradahan nimanka waxay ahayd niman u socday ahay inay dadkaas nabadda haysto ee nabadda ku bulaalay inay xabad ay la tagaan مسكين adeero waxay taagantaa abo macaani maanta gur walba oo ku yaala xamar ama laba cunug ama saddex cunug ama afar cunug ayaa ka dhimatay iyagoo wax barasho dhameeyeen iyagoo hanti leh iyagoo dawlad ku jiraan iyagoo wax bareen hooyooyinkooda iyo waalidkooda gur walba iskaga dulqaadi karnaa maanta fiir 300 ku dhawaad baan daawanaysaa waa Soomaaliye iskaga dulqaadi karnaa abay macaan maalin walba tacsiba ku jiri karnaa aniga ku hadlaay al-shabaab laba wiil iyo gabar inaga dileen aniga kula hadlaa hooyaday aabe dhaleen al-shabaab laba cunug inaga dileen wiil iyo gabar wiil dugsi sare ka baxay iyo walaashay ciidan ka baxday marka maxaa yeelay marka al-shabaab guri hawiyo dilooy al-shabaab ma dilooy cid kale buu ii sheegin طبعا ما تقرا اباي اسكري اسناب جابك اي تيك توك اسكتو دوواي اي 2000 iyo maarta 200 qaato اسكري 300 qaato اباي ما hal mar waxa yaraan rabaa macna maadaama ay soo hadal qaade haday hadalka inta ka sheegay waxaan rabaa wiilka Soomaaliga ee naftiis furaha ah ee aan haysan madax ee ku maartay isha ku hogaamiso wadada toosan ee cadawga la iskaga dulqaadi lahaa madax walba wuxuu taagaya oo maamul haysto wuxuu taagaya hadda ani qandaraaska helaynin wax dagaal la qaadayo ma lahan ee cadawga shacabka iska laayo taas xal uma noqonayso Soomaali waa looga Ahmed Kaariye Qorqor wuxuu ka dhawaajiyay qabiiladii degay gaduud iyo mudug inta maartay sicil qaameen ee qori qaateen ayuu yiri lacag hadana ku qaadaneen wax odawaa hataa waa kaga soo cararay sababtoo naftiisa u baqay sababtoo ninkan laba shabaab inay wada shaqeeyaan shaki kuma jira sheekada ma noqotay marka waxaan rabaa adeero mudgal waxaa ku sheega aniga mudgal de hawiya wax mudgal ana waxaan sheegayaa waxaan ka wada ahayn ina anaga reer Muqdisho isoo xureyno hawiya inay soo xureeyaan kadib markay soo xureeyaan ay maxay ahayd dawladda kadib ay imaad ana waxaan ila dawladdu waxay imaan kartaa markii anaga is xureyno wadankan xur ka dhigno nabad iyo kala dambeyn iyo qofka Muqdisho soo galay iyo qofka qof dilo ina ogaan karnaa kadib ayaa waxaan isku waxayn karnaa Puntland Somaliland iyo Soomaaliya markaas midoobi kartaa markii ay noqoto Soomaaliya oo dhan nabad laga dhigo ma garatay Puntland nabad ka jirto Hargeysa nabad ka jirto Muqdisho nabad in laga dhigo markaas kadib anaga waxaan noqon karnaa dad dawlad iyo madaxweyne u istaago waayo hadii ay taagan tahay Muqdisho madaxdii ah Muqdisho maxay laga dhigayaa madaxweyne laga dhigayaa oo iyada Soomaaliya u midaysan tahay waxay noqonaysaa everything maalin walba inay qarax ka dhaco Muqdisho sida oo hadda ugu dhacay ka darna ugu dhaco laakiin waxaan dhila aniga qabiil iyadoo jiro dhageyso عايشو صورنا يا igu qasbaasay ma galaayiga amste aan hadlay waa haliyeen naga baxay waa tiir anaga aan ku dayashadiisa iyo wadan jaceelka iyo wadaniyadiisa iyo dadjeelnimada shahid waay ilaahay waxaan ka baryaa jannatul firdaws al-a'la inuu ilaahay geeyo inuu ilaahay qabrigiisa u waasiciyo dalkiisa u shahiiday dadkiisa u shahiiday yaana haysta anaga yaana haysto dalkiisa dadkiisa u shahiiday waa haliyay qaran waa baxday dhaafade amaalay aan martaan ku siina waa dalkiisa u shahiiday dadkiisa u shahiiday waxaan rabnaa Soomaaliya inaan u duceyno qof walba ka qayb qaadan kara ducadiisa maanta jimco waa saacadul mustajaaba ku jirto war la socda dad abay kaadi inta
ayay nabadoon cilmi waa ku daraa inta dhimato shuhadada ah ee u dhintay dalkooda iyo dadkooda ayagoo difaacayo saacatul mustajaaba ku jiro hadda dad bay casr u tahay dad bay barqa u ii sheeg duurnimo ama kowda ama labada u tahay walaalayaal waaniga bariyaa codsi waaye inuu Soomaali Ilaahay ka dulqaado cadowgan afka dhiiga ku leh cadowgan aan dadka kala reebeynin kan qorimo wata kan maatimiya birmageedamiya ma kala yaqaano